xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab maanta waxaa gaaray madaxa ugu sareeya hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxaana uu la kulmay dadka deegaankaasi ku jira ee qaxootiga wariyaha telefishinka RTN ee xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab Cabdirasaaq Kaahiye Miftaax ayaa faafahinta warkaasi Dhadhaab ka soo diray booqashadani maanta uu ku soo gaaray madaxa ugu sareeya hay'adda UNHCR ee lagu magacaabo Filippo Grandi ayaa waxa ay timid kadib markii maalmihii ugu dambeeyay xariyaha qaxootiga ay Dhadhaab iyo Faafi ay ka socdeen mudaharaadyo ay sameynayeen dadka deegaanka ah ee ku nool xariyaha qaxootiga Dhadhaab iyo Faafi booqashada ayaa waxa ka weliyay Filippo Grandi madaxa qaramada midoobay madaxa UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Abdi Afey iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha dalka Canada dhinaca kale waxa weheliyay gafana ku xigeenka countiga Garissa iyo madaxda kale laga soo doorto deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba koonfurta Wajeer ugu horreyn goobta waxa ka hadlay madaxa hay'adda UNHCR ee adduunka Filippo Grandi waxa uu ka warbixiyay safarkiisa waxyaabaha uu safarkiisa waxa uu quseeyay resources you know it is very difficult to fund programs in Africa. I am not ashamed to say it. I fight all the time. Ask my director for Africa who's here. We fight all the time, but Africa hosts, unfortunately, many refugee situations, many conflicts and many refugee situations. It is the most difficult to find resources for Africa, and I want to also use this opportunity to remind countries that they should not forget that, donor countries, both in terms of resources, humanitarian resources, development resources for the long term, education, jobs and so forth, and resettlement places for the most vulnerable. And I have recently, for example, appealed for 40,000 new resettlement places for countries in Africa, and I have received some feedback, maybe 12,000-13,000. We need much more than this. dhinaca kale madaxa ayaa waxa uu ka hadlay safar uu ku tagay magaalada Kismaayo iyadoo magaalada Kismaayo uu kula soo kulmay dad ka laabtay xariyaha qaxootiga Dhadhaab una laabtay dalkooda Soomaaliya oo ku nool magaalada Kismaayo. Somalia, I had talks with the president and the prime minister, and I visited Kismaayo yesterday where I met President Madobe of Jubaland and visited some areas to which people coming from Dhadhaab, among others, are returning. Now, many people ask me, are these people happy or not? I would say, like everywhere, some people are happy to go back, some other people have some challenges, and we are trying to help the government and the authorities in Somalia to help the returnees to the extent that they can. I have called from Somalia, and I'm going to call from Kenya also. gees kale waxa goobta ka hadlay Maxamed Abdi Afey madaxa UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya isagoona sheegay in safarkani uu yahay safar aad u muhiim ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha qaxootiga Dhadhaab waftiga uu hogaaminayo High Commissionerka u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka Filippo Grandi iyo wasiirka Immigration Canada Minister Ahmed oo booqasho rasmi ku jooga wadanka Kenya oo imaaday magaalada Dhadhaab iyagoo booqasho ugu imaaday qaxootiga ku nool Dhadhaab oo inta badan ay yihiin qaxooti Soomaaliyeed isla markaasna aan rajaynayno umaashadooda inay beesha caalamka ay u soo jiidi doonto indhaha caalamka oo annaga aan aaminsanahay inay Dhadhaab iyo qaxootiga Soomaaliyeed muddaba laga jeestay maadaama dhibaatooyin badan caalamka ka jira oo dhibaatada Syria iyo dhibaatada South Sudan iyo dhibaatada Burundi ka dhacayso indhihii ka jeediyeen dhibaatada qaxootiyaha Soomaaliyeed ay maalin walba fool saaraan oo muddo badanna ay ku noolaayeen xarooyinka qaxootiga ugu horeysa xaradan Dhadhaab marka waftigan waa wafti runtii aad iyo aad qaali u ah waa wafti aan rajaynayo natiijo fara badan inay uga imaan doonto waa wafti aan rajaynayo maslaxada qaxootiyaha Soomaaliyeed inay wax badan ka qaban doonaan markii aan ka soo tagno hadalladaasi waxa ay shir la yeesheen madaxda ugu sarsareysa ee xariyaha qaxootiga Dhadhaab iyo Faafi sida Ifo Dhigaxley iyo Ifo 2 shirkaas oo ay albaabada u xirnaayeen oo saxaafadda aysan ka qayb galin laakiin balse madaxda oo xariyaha aan la hadalnay ayaa shirkaasi waxa looga hadlayay xaaladda xariyaha qaxootiga Dhadhaab ay ku sugan yihiin iyadoo xoog la saarayay waxbarashada iyo caafimaadka dhinaca kale waxa laga hadlay xagga cunooyinka iyo waxyaabaha ay qaataan dadka Soomaaliyeed ee ku nool xariyaha qaxootiga Dhadhaab
sidoo kaleeto cunooyinka laga qaato inta badan madaxda waxay aad ugu hadleen oo aad ugu dheeraadeen hadalladooda ka mid ahaa cunada haatan laga bixiyo xeryaha qaxootiga Dhadhaab taasoo ay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka qaxootiga ah waxaa jira cunooyinkii hore la siin jiray xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo cunooyinkan hadda la qaybiyo farq weyn ayaa u dhaxeeya sababtoo ah waxay qaadan jireen waxyaabo oo bulshada Soomaaliyeed cuni karto balse waxay ku tilmaameen cuntada la qaadanayo cunto aysan jirin geesti kale waxa meesha ka hadlay goobtaasi ka hadlay madaxda kala duwan laga soo doorto deegaanada Faafi iyo Dhadhaab iyo waliba koonfurta Wajeer oo xeryaha qaxootiga Dhadhaab ay u kala qaybsan yihiin ayagoo halkaasi ay ku tilmaameen in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashada Philipo Grandi oo ku yimid xeryaha qaxootiga Dhadhaab maanta waxaanu taaganahay bartamaha Dhadhaab xerooyinka qaxootiga Dhadhaab runtii waxaanu u nimid socdaalka oo la kaashanaynay ninkii u weynaa xerooyinka ninkii u weynaa wadamada qiroomay qaxootiga qaabilsan marka sidaa darteed socdaalka isaga ah wuxuu ku koobnaa wasiir Soomaaliyeed oo ka yimid Canada oo halkan booqanaya qaxootiyada booqanaya booqashada iyada ahayd annagu waxaanu aragnay dantana noogu jirto in aan arrimaha bulshadana soo dooratay in aanu ka falanqayno aan ka hadalno aan taabsiino xubnahan yimid oo wafdiga booqashada Philipo Grandi ayaa waxa ay ka soo beegmaysaa waxa ay tahay booqashadiisii labaad oo ku yimaado xeryaha qaxootiga Dhadhaab horaantii bishii Agoosto ee sanadii aan ku soo gudubnay 2016 waxa uu soo booqday Philipo Grandi xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxa uu nashir ku leeyahay xerada qaxootiga Ifo halkaas oo kula kulmay dhammaan bulshada kala duwan ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab waa Cabdirsaaq Kaahiye Miftaax telefishinka caalamiga ee RTN xeryaha qaxootiga adayuu mahadsan yahay wariyaha telefishinka RTN uga soo warama xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab Cabdirsaaq Kaahiye Miftaax waxaanu xasuusinaynaa in socdaalkaasi uu ku tagay madaxa ugu sareeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR uu wehelinayay wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ee wadanka Canada Axmed Xuseen oo kamid ahaa wafdigii halkaasi maanta booqday iyagoo la kulmay shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkan Kenya ee xerooyinkaasi ku jira